Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Kusoo dhawaada muuqaalkeenii toddobaad ee taxaniheenii soddonka muuqaal. Maanta halkan waxaanu ku qaadan doonaa waxa weeye waa muuqaalkii u horreeyay ee design ah. Maanta waxaanu qaadan doonaa qaabka loo sameeyo social media post design. Social media post design-kan wuxuu noqon doonaa mid e-commerce ah oo aanu ku qaadan doono kabahan qaabka loo sameeyo posterkooda. Marka waxaa jirta waxyaabana waynu la soo degnay, waxyaabana waa inagaa samaynay. Marka waxyaabaha aynu samaynayna waan tusi doonaa, waxyaabaha kalena waxaan samayn doonaa iyaga oo resource ah inaan idin dhigo telegramka resource. Marka haddii aadan telegramka ku jirin waxaad ka heli doontaa description-ka. Intaana muuqaalka bilaabin marka waxaa kaa codsanaya haddii aad meel walba aad naga daawanayso inaad haddii aad hore noola socon inaad nagu soo biirto si aad muuqaalada dambe ula socoto. Haddii aad hore noogu jirtayna inaad la sii wadaagto asxaabtaada si ay iyaguna uga faa'iidaystaan. Waan iska bilaaban doonaa casharka. Marka horeysa waxaan la soo furanaynaa waxa weeye new document. Software-ka aanu isticmaalayna waa Adobe Photoshop. Marka waxaanu tegi doonaa file kadib new baynu dooran doonaa. New markaynu dooranno halkan waxaanu gashan doonaa waxa weeyaan cabirkii, resolution-kii iyo magacii. Marka cabirka halkan igu jira waa 1080 by 1080 waa square oo social media post design baa ugu talagalay. Halkan baa waxaan gelinayaa waxa weeyaan magacii. Halkaas waxaan ku qoranayaa social media post design. Ayaan saa u gelinayaa. Kadib halkan cabirku sidiisii ugu jiraya 1080 by 1080 saddexdaa boqolna waan ku daysanayaa RGB bay ahaanaysaa maadaama aan social media ku faafinayo aanan daabac ahayn. Kadib waxaan leeyahay create markaan idhaahdo waxay soo bixi doonaa canvas-kan cad. Waxa u horreeyan ka bilaabi doonaa waxa weeyaan layersku sida ay u kala sarreeyaan ayaynu u kala hor samayn doonaa. Marka waxa horreeyan samaynaa waxa weeyaan waa background-ka. Marka background-kiina haddii aad arki karto waxa weeyaan waa gradient oo laba color ba isugu jira. Waxa kaloo ku jirta bubbles yaryar ama circles yaryar baa ku jira. Waxa ku jira fiber texture. Saddexdaas aynu ugu horreysiinaynaa. Marka horeysa waxaan tegayaa halkan kadib waxaan tegayaa layerska markaan joogo background-kayga baan dul taagantay. Anoo background-kayga dul taagan waxaan tegi doonaa halka adjustment layer-ka. Adjustment layer-ka markaan ku dhufto halkan waxaa iga soo bixi doona setting-ka faraha badan leh haddii aad arkayso. Marka waxaan dooranayaa waxa weeyaan halka u sarreysa ee ku xigta ee gradient ku qoran tahay ama gradient-ka ayaan click leeyahay. Click markaan idhaahdo waxaad arkaysaa wuxuu sameeyey gradient-keennii laba color buu inooga dhigay caddaan iyo casaan oo casaankii uu hoosta kaga furay. Kadib waxaan sii dooranayaa halka color-ku uu ka muuqdo ee gradient-ka uu ku yaallo ayaan click leeyahay. Click markaan idhaahdo halkan waxaa iga soo baxay haddii aad arki karto meel aan ka maamuli karo labadii kalarra hore u jirayna aan ka dooran karo. Marka waxaan dooranayaa halkan casaankan kadib double click baan leeyahay halkan baan bedelinayaa. Marka isagoo casaankii taagan ayaan yara madoobaynayaa oo casaan yara dark baan ka dhigayaa oo madow ku yara jiro kadib okay baan leeyahay. Haddana waxaan tegayaa dhinaca kalarka kale. Marka haddii aad arki karto labada point yaryar ee kalarka ku jiro mar walba waxaad dooranaysaa kuwa xagga hoose xiga marka aad doonayso inaad kalarka maamusho. Marka kan hoosaan dooranayaa halkan casaan baa iga soo baxay click baan leeyahay kadib isagana waxaan ka dhigayaa casaan saxdiya oo bright ah baan ka dhigayaa okay baan leeyahay. Kadib waxaad arkaysaa weli inaanu casaankeenii inoo muujismin. Sababtoo ah waxa weeyaan waxaa yar ama zero ah opacity-giisa. Marka haddii aad arkayso halkan opacity-ga waa inactive waxba kama bedeli karno. Si markaad haddaba opacity-ga shayga kalarka aad wax uga beddesho waxaad tegaysaa ka sare oo opacity stop-ku ku yaallo click baad leedahay. Waxaad arkaysaa halkan opacity-geenu waa zero. Kadib waxaan gelinayaa halkaa boqol. Waxaad arkaysaa kalarkeennii wuu inoo soo baxay. Marka haddii aad arki weydo opacity-ga halkaas ka beddelaysaa. Kalarkana waxaad ka maamulaysaa kan hoose color stop ku qoran tahay. Ka sarena maxaa kugu qoran opacity stop. Hoosena color stop. Labadaas ka kala maamulaysaa. Kadib okay baan leeyahay. Haddii aad arki karto imka gradient-keenu wuxuu u samaysan yahay qaab ah linear. Linear-ku marka waxa weeyaan in uu dhinac labada dhinac ay labada kala laba dhinac kala maraan. Oo imka haddii arkayso casaankii bright-kana xagga sare inoo joogaa kii yara dark ku jirayna xagga hoose ayuu inoo joogaa. Haddaba waxaynu doonaynaa sida design-keena aad ka arkayseen in uu radial inoo ahaado. oo casaanka bright-ka ah inuu dhexda dhiida yimaado sida dot-ko kale u samaysan gradient kan daagu madowga ku yara jiraan oo hareeraha ka maro. Kadib halkan baan soo furay style-ka haddii aad arki karto kadib waxaan dooranayaa radial. Radial markaan doorto waxaad arkaysaa iminka kii madooba ayaa center-ka ii tegay. Inaan si fiican u yara arag baa laga yaabaa. Si aad markaa si fiican ugu aragto kalarkii baan ku noqonayaa kan daaga ayaan madow aan si yara aad baan u si yara madoobaynayaa. Daagan ku sii kordhinayaa halkaasaan tegayaa kadib okay baan leeyahay. Iminka waxaad arki kartaa dot yar baa design-keena dhexda kaga yaalla. Kadib waxaan samaynayaa si aan u kala rogo labada kalar. Markaan halkan joogo waan kala rogi karaa oo waan isdaba marin karaa saan intaan idhaahdo aan halkan keeno aan ka kalena xaggan u soo kaxayn karaa. Marka waxba sidaa ma samaynayo kan aan halkiisii ku celiyo okay baan leeyahay. Taa waxa kaaga fudud waxa weeyaan halka haddii aad arki karto halka ay ku taalo scale-ka halka ka hooseysa waxaa inoogu taala reverse. Marka maxaad dooranaysaa reverse-kaas. Reverse-kaas wuxuu samaynayaa kalarkii dhexda kuu joogin inuu hareeraha kuu geeyo kii hareeraha kuu joogin inuu dhexda kuu keeno. Marka reverse baan leeyahay. Labada kalar
baa la isu kaa daba marinaya. Marka iminka kanaad si fiican u arki kartaa. Haddaad arkayso daagii hareeruhu maray, kii price-ka ahna dhexda ayuu inoo joogaa. Marka kadib baa waxaan leenahay okay. Okay baan leenahay. Kaa markaynu gradient-kaa samayno, lock baynu iska odhanaynaa si aanu inoo xanibin. Kadib waxa inoogu xiga waxa weeye inaynu soo qaadano Beaver texture-kii. Marka Beaver texture-ka anigu waan la soo degay. Google-kaan tegey, Beaver texture baan ku qoray, Beaver texture fara badan bii soo saaray, mid baan soo qaatay. Marka kii aan soo qaatay resource-kan kugula wadaagi doonaa oo Telegram-kaad ka helaysaa. Marka kaasaad isticmaali doontaa. Haddii aad u baahato ku kale inaad la soo degtana, Google-kaad tegi kartaa, Beaver texture baad ku qori doontaa insha Allah. Laakiin iminka waxaan soo qaadanayaa kii aan hore u isticmaalay. Waxaan tegayaa postigaygii hore. Kadib haddii aan iminka hoos u socdo, halkan baa waxaan ka eegi karaa Beaver texture-kayga. Marka Beaver texture-kaas hore ayaan soo qaadanayaa. Halkan aan keenayaa. Kadib Ctrl T baan leeyahay, waxaad arkaysaa size-ka wuu iigu fadhiyaa. Kadib okay baan leeyahay. Okay markaan idhaahdo isagana lock baan odhanaya. Marka waxaad arkaysaa gradient-ka iyo Beaver texture-ka ay sareeya oo shay yar buu ku sameeyey postigeennii. Xaggan aynu noqonaynaa. Marka waxyaabo fara badan baa waxaan soo qaadan doonaa si time-ku inoogu yaraado oo aad inooga badanin. Waxaan samayn doonaa iminka halkan oo kale waxaa inoo yaala dotskan. Waxyaabahan oo dhan markaa waan kula wadaagi doonaa oo resource ahaan baan kula wadaagayaa oo waad isticmaali kartaa. Haddii aan iminka soo dhaweeyo, waxyaabaha qaar time-koodu yar yahayna waxaanu samayn doonaa inaan ku tuso oo aad samayn karto. Iminka dotskan waxaa la isticmaalay circles, kadib group baa la iskaga dhigay, hareerahana erase baa laga mariyey oo waa la yara masaxay. Iminkii aad buu u hooseeya bastigoodu oo uma baahnin in si fiican loo arko. Marka halkaasaan dhigayaa. Kadib haddana waxaan samaynayaa inaan alta qabto, aan halkaa dhigo. Halkaasaan dhigayaa. Labadoodii halkaasaan kala dhigtay labadaa koone. Background-kii weli waxaanu wadnaa waxa weeyaan inaynu background-keennii dhisno. Hadhow waxa inoo hadhay waxa weeyaan gebigeeduba inaynu product-giina soo gelino, qoraalna ku qorno. Halkan aan imanaya haddana waxaa jira waxaanu samaynaynaa circles-kaas. Circles-kaas yaryar maadaama aad u fududahay waqtigoodu yar yahay, waxaanu samaynaynaa marka circle baad soo dooranaysaa. Kadib halkan aad imanaysaa, shift baad qabanaysaa, saasaad yar weynaynaysaa. Intaas ka dhigaysaa. Kadib maxaad samaynaysaa? Color-ka fill-ka ah ayaad ka saaraysaa. Qaybtan properties-ka aad imanaysaa. Fill-kaas ayaa waxaad leedahay none baad ka dhigaysaa. Kadib halkaa hoose stroke-ga ayaad caddaan dooranaysaa. Waxaanad ka dhiganaysaa tiradiisa, waxaad ka dhiganaysaa 5. Kadib enter baad leedahay. Waxaad arkaysaa stroke-gaas ayaa inoo samaysmay oo circle-kii aynu ku samaynay. Kadib haddaba si aynu tii dhexdana u samayno, isla circle-kii oo inoo dooran ayaynu Ctrl T leenahay. Kadib Ctrl T baynu odhanaynaa. Marka Ctrl T-na waa transform. Waxaan filayaa shortcut-ka inaad ila fahmaysaan. Ctrl J-na waxa weeyaan waa duplicate oo shayga ayuu laba kaaga dhigaya. Ctrl T markaad tidhaahdo adoo alta xijinaya ayaa waxaad samaynaysaa inaad yarayso. Marka altadu maxay samaynaysaa? Dhinac walba in isla eg ayay kaaga soo yaraynaysaa. Kadib check baan leeyahay. Waxaad arkaysaa labadeeni circle isugu keen dhex jiraan. Kadib labadooda haddii aan isku doorto alignment-ka haddii aan ka shakiyo, center-ka ayaan geysanayaa. Kadib Ctrl T baan labadoodaba odhanayaa. Alta ayaan qabanayaa, labadooda waan yaraynayaa. Qaabkaasaan labadooda u yaraynayaa. Labadoodii markaan qaabka u yareeyo ayaan xaggan sare dhiganayaa. Aan doorto xaggaa sare ayaan geynayaa. Haddana check baan leeyahay. Ctrl T baan odhanayaa. Ctrl T haddana xaggan aan keensanayaa hoose. Kadib check baan leeyahay. Labadoodiiba halkaasaan kula dhiganay. Waxa kaliya inoo hadhay waxa weeyaan haddana haddii aynu poster-keennii ku noqonno, waxaa inoo hadhay kabta inaynu la soo degno, inaynu dhammaan design-ka intiisii kale qoraalka iyo isugu jirtay aynu samayno insha Allah. Waayo background-keennii iminka waynu diyaarsanay. Marka kabtani maadaama ay resource ku jirto iyada sideedaan ku qaadan doonaa. Haddii aad doonaysa inaad kab kale la soo degto, Google-kaan tegi doonaa waan ku tusayaa qaabka aad ula soo degayso. Halkan aan imanaya. Marka waxaad arkaysaa wixii u dambeeyay aan isticmaalay marka Google ku jiro waxaa Beaver texture-kaas waan la soo degay. Kadib double click baan leeyahay. Saasaan u masaxayaa. Halkaas waxaan ku qoranayaa iminka waxaad arkaysaa Nike shoes ayaan research gareeyay. Nike shoes markaan ku qoro waxyaabahan oo dhan buu kuu soo saari doonaa. Haddaba si ay hawshu kugu fududaato oo aadan hawl kale u gelin background-ka saarida, waxaad samaynaysaa toolskaas aad soo furanaysaa. Waxaad tegaysaa size, kadib large baad dooranaysaa. Large markaad doorato waxay ka dhigan tahay waxaa lagu siin doonaa shay image pixelskiisu aad u sarreeyaan ama quality-giisu aad u fiican yahay. Haddana waxaad sii tegaysaa qaybta color-ka, waxaad dooranaysaa transparent. Transparent markaad doorato waxay ka dhigan tahay result-ka kuu soo baxaya tabahan oo dhan gebigooduba waa bila background. Marka haddii aan imka kanoo kala doorto, waxaad arkaysaa kabtaas waa bila background. Marka waxaan samaynayaa right click baan leeyahay. Waxaan odhanayaa save as image. Waxaad arkaysaa tabahaas ay igu sii jira oo markaa wuxuu ku soo saaraya kuwa ay isku file type yihiin.
kadib save baad odhanaysaa qaabkaasaad ula soo degaysaa. Haddaba aan kayga ku noqdo taydan lafteedaan qaadanayaa halkan aan keensanayaa halkanay kabtaydii taallaa. Kadib waxay hadhay calaamadii Nike-ta waxaan tegayaa Google-ka halkan baa waxaan ku qoranayaa Nike logo. Marka Nike-ta loogadeedii ayaan la soo degaya. Waxaan dooranayaa tan kadib tan lafteeda ayaan waxaan odhanayaa copy markaan idhaahdo Photoshop-kii baan imanayaa Ctrl V baan leeyahay kadib Ctrl T baan odhanayaa in yar baan soo yaraynayaa si ay gudaha igu soo wada gasho. Markaa si aad background-ka uga saarto sidii aynu casharadii hore ku sharaxnay waxaan isticmaali doonaa Magic Eraser tool-ka oo inoo masaxaysa wixii isku background. Waxaan tegayaa halkan Magic Eraser tool-kan ka dooranaya halka menu-ga kadib click baan leeyahay. Waxaad arkaysaa dhammaan waxaa layga saaray hal mar background-kii caddaa. Kadib maxaan samaynayaa kabta waan ka hoosaysiinaya. Kabta markaan ka hoosaysiiyo ayaa waxaan samaynayaa inaan tago effects-ka kadib color overlay baan dooranayaa okay baan leeyahay. Waxaad arkaysaa caddaan baa layga dhigay caddaan. Markaa caddaan baan ka dhiganaya loogada kabtana waan ka hoosaysiisanayaa. Waxay hadhay waxa weeyaan inaan qoraalkii ku qoro text baan tegayaa kadib halkan baan click leeyahay new arrival baan qoranayaa marka hore arrival kadib Ctrl A baan leeyahay saasaan yaro weyneynayaa waxaan samaynayaa inaan caddaan ka dhigo okay baan leeyahay kadib check baan leeyahay haddana yar baan sii yaro weyneynayaa intaasoo kale aan ka dhigayaa check baan leeyahay haddana waxaan samaynayaa move toolkaygaan tegayaa kanaan dooranayaa Ctrl J baan leeyahay oo kala koobiyeysta markaa Ctrl J waa koobiyeyntii kadib waxaan samaynayaa halkaas waxaan ku qoranayaa pixel ayaan halkaa ku qoraya pixel markaas aan ku qoro Ctrl A baan leeyahay oo select garayntiya halkan baa markaa waxaan ka doonaya farta ray loo yaqaan marka fartan haddii aanay kugu jirin waxaad kala soo degi kartaa Google waxaad ku qoraysaa ray regular regular baad ku qoraysaa waan dooranayaa kadib check baan leeyahay Ctrl T baan odhanayaa waan yaro waaweyneynaya qaabkaasaan waaweyneynaya ilaa intaas ayaan ka dhigayaa kadib check baan leeyahay intaasaan samaynayaa xaggaa intaas ayaan ku sameeyey kadib waxay hadhay waxa weeyaan xaggan hoose ayaan u soo noqonayaa marka horeysa waxaan samaysanayaa rectangular baan soo qaadanayaa halkaasaan saa u soo dhiganayaa kadib waan soo dhaweysanayaa si aan si fiican ugu arko Ctrl T baan leeyahay waxaan samaynayaa inaan halkan imaado kadib aan yar saa u yaro celiya hareeraha kadib waxaan samaynayaa caddaan baan ka dhiganayaa caddaan baan saa uga dhiganayaa markaan intaas sameeyo halkan waxaad ku arki kartaa waxa halkan inoogu yaala quality services baa inoogu qoran kadib halkan waxaa inoogu qoran waxyaabaha aynu qofka customerka ah usoo jiidan karno ay ka tahay free shipping ay ka mid tahay markuu qofku limitka gaadho ay ka mid tahay paymentska secure 1 year oo limited warranty oo kale ah marka kolba waxay ku xidhan tahay waxa aynu iibinayno iyo 24/7 service oo ah in mar walba layna heli karo marka waxaan xaysiis weeyaan waxaan sameynaa marka hore quality service-kaasi aanu sameeyno halkan nimanna waxaan sameynaa halkan taga soo qaadanay halkaasaan click leeyahay kadib halkan maxaan ku qorayaa quality services kadib Ctrl A baan leeyahay halkan baan imanayaa waxaan ku qoranayaa markaa farta ayaan iska bedelayaa saasaan soo roganayaa marka fartan doonto ayaa isticmaali kartaa muhiimaddu waxa weeyaan qofku inuu wixiina fahmo samayn karo ma aha qasab inaad aan anigu samaynayo oo kale aad soo samayso laakiin waxa muhiimku yahay inaad wixii fahanto marka fartan iska yara bedelayaa fartan anigu doonayo inaan ku sameeyo ayaan soo dooranaya markaan qaabka u qorto halkan baa waxaan ku qoranayaa fartan markaa isticmaalayo kadib fartan soo dooranayaa check baan leeyahay kadib markaa waxaan samaynayaa halkan aanu yaro durkayaa waxaan samaynayaa inaan qoraalka yara yareeyo intaan halkan keensado inaan Ctrl T idhaahdo aan saa u yara yareeyo aan halkaa keeno kadib waxaan hor dhigayaa rectangular yar baan halkan dhigayaa qaabkaasaan u dhigayaa kadib caddaan baan ka dhiganayaa rectangularka intaasaan xaggaa ku daynaya kadib waxaan samaynayaa inaan dib isaga durkiyo fit baan leeyahay kadib waxaan samaynayaa haddii aad arki karto shape-kan waxaa ugu talagalay waxa weeyaan serviceska aynu halkan soo dhignay marka waxaan samaynayaa hal mid baan samaynayaa oo aan ku tusayaa kadib waxaa la rabaa inta kale inaad adigu samayso marka waxna waa inaan anigu sameeyo waxna waa inaad adigu samayso haddii aynu idhaahno dhammaantood afartaba waynu samaynaynaa casharkun baa inagu dheeraanaya waana isku process waxba kuma kala duwana marka waxaad soo raadsanaysaa iconiski marka iconada markaad la soo degayso halkan baan imanayaa waxaan isticmaalayaa anigu website-ka loo yaqaano Flaticon waxaad ka heli kartaa flat icons marka icono ayaa laga helaa waana icons free ayaad ka helaysaa marka Flaticon baa isticmaalaa ama font fabric ama endless icons kuwaas isticmaali kartaa marka halkan markaa imaado waxaad arkaysaa 12.4 million factor icons baa ku jira
halkan waxaan ku qoranayaa imika oo kale shipping marka mar walba waxaa loo baahan yahay termkii aad wax ku raadinaysa inaad hayso ama kelmadii shipping baan ku qorayaa kadib click baan leeyahay wuxuu soo saarayaa icono fara badan oo shipping ah haddaad arkayso shippingna fara badan buu soo saaray marka waxaan doonayaa in diyaaraddii igu jirto waxaan u baahanahay shipping ay diyaaradii ku lafaaqanto markaas aanan u yaro wadwadaya ilaa intaan kaan doonayay ka helayo iminka oo kale mid baynu iska qaadan karnaa sambala dhibaatooyin kuma jirto iminka oo kale kanaan qaadanaya marka waxaa jirta system lamaro ah iconiskaagu inay isku type noqdaan iconiskaagu haddii ka u horeeya fill yahay ama sidan oo kale uu yahay in gebi ahaantooda ay fill noqdaan haddii uu qaabkan oo kale yahay stroke uu yahayna in iconisku ay stroke wada noqdaan inaad hal style wada raacdo iska ilaali in iconiskaaga midna fill noqdo midna stroke noqdo waxyaabaha designka kaa fool xumeynaya ayay ku jirtaa marka right click baan leeyahay amase copy png baan leeyahay kadib halkan iconkana dooranaysa halkaa ku taalo copy png marka wuxuu isu saaray waxaad arki kartaa copy png markaan idhahdo firefox baan isticmaalayaa waa disabled marka waxaan samayn karaa in aan ka soo galo chrome ama inaan download garaysto oo intaan halkan doorto 512 free download baan leeyahay waan iska download garaysanayaa adigu laakiin waad koobiyeysan kartaa waan download garayay delivery haddaad arkayso kadib photoshopkeeni baan imanayaa halkanaan imanayaa kadib waxaan soo dooranaya place embedded baan leeyahay marka place embedded waxa weeyaan in ay waxa aad soo furanayso isla lagugu soo furo artboardkan dhexdiisa laakiin open haddaad aad u tiraahdo wuxuu sameynayaa inuu document gaara kuugu soo furo place embedded baan leeyahay kadib waa kan deliverygi place baan leeyahay marka waxaad arkaysaa waxaa laga soo dhex dhigay designkaygi waxaan sameynayaa markaa intaan alta qabto inaan saa u yareeyo saasaan u yareynayaa kadib tag baan leeyahay waxaan sameynayaa inaan rectangularka dhex dhigo rectangularka markaan qaabka u dhex dhigo waxaan sameynayaa inaan colorka ka bedela haddaba layers baan imanayaa isagaan imanayaa waxaan tegayaa fx ama layer styleka kadib waxaan dooranayaa color overlay markaan doorto ayaa waxaan sameynayaa inaan casaan ka dhigto haddaba maadaama marka hore madow ahaa si aynu kalarada isu waafajino casaan baan ka dhigtay kadib maxaan sameynayaa haddaba halkan aan tagaskii ku qoranayaa ahaa free shipping order ama over haddii aad arkayso kadib waxaan odhanayaa $500 haddii orderkaagu $500 gaadho bilaash baan alaabta kugu keenaynaa kadib halkaasaan dhigdhigayaa waxaan sameynayaa inaan font ka bedelo Optinis baan isticmaalayaa marka farahan gebigoodaba waxaad ka heli kartaa waxa weeyaan website-ka loo yaqaano Google Fonts baad ka heli kartaa iyo The Font labadaba linkiyadooda waxaan soo dhigi doonaa waxa weeyaan resource-ka Telegram-ka marka labada website linkiyadooda soo dhigi doonaa far alyaala fartood u baahantii ayaad kala soo degi doontaa labada website bana waa free midna Google baa leh midna The Font baa leeyahay fara badan oo free ah ku jira waad kala soo degi doontaa marka iconada qaabkaas oo sameynaysa marka waxaad sameynaysaa waxa weeyaan in aad textka iyo intan rectangularka ayaa waxaad sameynaysaa in aad control t tiraahdo kadib aad qaadato waad kala koobiyeysto waa koobiyeysanaysaa si marka waxaad sameynaysaa kaliya waxa weeyaan inaad iconiska ka bedbedesho oo aad qaabkaa u wado waxa igu hadhay waxa weeyaan waxaan sameynayaa inaan halkan hoose rectangular kala saa u soo dhigto kadib maxaan ku qoranayaa waa contactiskii ayaan ku qorayaa halkan caddaan baan ka dhiganaya backgroundka fartana casaan baan ka dhigaya markaa waxaan sameynayaa inaan soo qaado rectangular kadib halkan aan keenayaa saasaan leeyahay kadib waxaan sameynayaa inaan dib u yara celiyo saas edgeska si roundka ugu yarbao kadib filkan ka saarayaa nan baan leeyahay kadib waxaan tegayaa stroga waxaan dooranayaa casaan kadib waxaan ka dhigayaa haddii aad arkayso waxaan ka dhigayaa ilaa 3 okay baan leeyahay kadib aan eegna haddaba waxaad arkaysaa strogas ayaynu haysanaa casaanka ah ayaynu haysanaa kadib maxaan sameynayaa waxaan ku noqonayaa firefoxkaygii kadib waxaan tegayaa halkan waxaan ku qoranayaa iyadana call icon ayaan ku qoraya call oo keliya aan ku qoran karaa maadaama flat icon aan joogo waana Google Images joogo waxaan tegayaa call kadib wixii soo saari doonaa icono fara badan oo call ku saabsan haddii aad arkayso kadib kaan u baahanahay ayaan qaadanaya imka kale kanaan dooranayaa waxaan dooranayaa download kadib free download baan leeyahay marka flat icon laftiisa qayb premium leeyahay marka iconada qaar baan ku shaqayn doonaa laakiin inta free-ga ayaad isticmaali doontaa Photoshop ayaan imanayaa kadib waxaan tegayaa file place embedded baan leeyahay kadib halkan aan imanayaa place baan leeyahay kadib waxaan sameynayaa alta qabto yareeyo qaabka u yareeyo tag baan leeyahay kadib maxaan sameynayaa waxaan dhex keensanayaa rectangularkii qaabkaasaan u dhex keenayaa kadib maxaan imanayaa layerska waxaan tegayaa layer styleka color overlay baan tegayaa waxaan filayaa dhammaan stepska inaad ila fahantay qaabkaasaa u sameynaysaa kaana kadib maxaad sameynaysaa text baad soo qaadanaysaa halkan aad imanaysaa text waxaad sameynaysaa rectangularka ka sarreysii kadib waxaad sameynaysaa casaan ka dhigo double click baan leeyahay halkaas waxaan ku qoranayaa
numberskii number ayaan halkaa ku qorayaa kadib halkan waxaan ku qorayaa 723101037 marka adigu maxaad ku qoranaysaa dee waa contactskaagii adiga kuu gaarka maadaama anigu kan aan ugu barayo qaabka aad ugu samaynayso 1037 kadib maxaad samaynaysaa waxa ku hadhay waxa weeye inaad locationka halkaa geliso haddii uu jiro email aad emailka geliso laakiin maxaad samaynaysaa the same process baad isticmaalaysa oo ah inaad iconka la soo degto rectangular haddii aad gashanayso haddii aad circle gashanayso adiga ikhtiyaar kale ma aha inaad limit isku xidho oo aad rectangular isticmaasho circle baad isticmaali kartaa waxaad isticmaali kartaa shape kale oo aan circle iyo rectangular toon ahayn waad ka dayn kartaa iconka sidiisaad ku isticmaali kartaa ma aha muhiimadii inaad isticmaasho gebigiisaba aad rectangular isticmaasho kadib waxaan samaynayaa halkaana waxaa lasoo gelinaya waxa weeyaan loogadii halkaasina loogada ayaa lasoo dhigi doonaa kolba company markaad u samaynaysa xaysiiskii kadib waxaan samaynayaa inaan caddaan ka dhigo okay baan leeyahay kale colorska waxaad raacaysaa waxa weeye waa brand colorka shirkadaasi leedahay ma aha inaad kan laftiisa aad casaankan aad ku samaynaysaa haddii brand colorka shirkadu nooc kale yahay noocooda ayaad raacaysaa marka maxaan samaynayaa intaan aan isku dooranayaa control T baan leeyahay control T baan leeyahay waxaan filayaa waxaan doortay qayb qaldan check baan leeyahay kanaan dooranayaa control T baan leeyahay kadib maxaan samaynayaa saanaan usoo durugsanaya si aan meesha ugu buuxiyo laakiin adiga ayaa bedbedelaya control T baan leeyahay control T kadib waan soo qaadaya halkan aan dhigayaa check baan leeyahay control T baan leeyahay haddana kadib saanaan leeyahay waad arkaysaa marka dhammaan serviceskeenii waynu samaysanay quality services xagga hoosena waxaad arkaysaa contactska baynu gashanay big sale waxay noo dhiman waa maxay markaynu halkan joogno waa qaybtaas ah discountka marka halkan aan imanayaa kadib maxaan samaynayaa circle baan soo qaadanayaa saasaan leeyahay saasaan odhanayaa caddaan bay tahay marka horeba caddaan bay noqotay kadib waxaan samaynayaa circle kalaan soo qaadanayaa waxaan samaynayaa inaan halkaa yar ka duldhigo markaa halkaa yar aan duldhigo kadib waxaan ka dhigayaa casaan baan leeyahay waad arkaysaa dot yar baa la moodaa ama dalool inay leedahay kadib halkaas waxaan ku qoranayaa 40% discount kadib halkaas waxaan ku qorayaa 40 boqolkiiba control A baan leeyahay kadib farta casaan baan ka dhiganayaa okay farta casaan baan ka dhiganayaa aan dulkeeno markaa circle-keydii control T baan leeyahay kadib aan saa u weynaysto halkan aan dhiganayaa fartaan iska bedelayaa markaa waan dooranayaa halkaas waxaan ku qorayaa saasaad leedahay farta markaa faraha ani iigu jira ayaan isticmaalayaa kadib check baan leeyahay saasaan yara durkinayaa kadib haddaba foodhigeeni muxuu yahay baan samaynaynaa halka waxaan ku qoranaa discount offer kadib control A baan leeyahay saasaan u yaraynayaa kadib halkaasaan geynayaa check baan leeyahay qaabkaasaan u samaynayaa marka discountkeena qaabkaasaan u samaystay posterkii qaabkaasaynu u samaynay marka adiguna waxaad isku dayi doontaa in aad samaysay insha allah waxaad isku dayi doontaa halkaasaan cashir ku joojinayaa fadlan haddii aad nagu cusub tahay nagu soo biir dad casharada dambe ula socota haddii aad hore noogu tagtayna laakiraa casharkan wixii baa la qabto commentiga hoose igu reeb la sii wadaaga asxaabta aad jeceshayna iyaguna kaala faa'iidaystaan wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu